dhacdo 29 bishii 8 ka dhacday deegaanka Nugalgamin oo aan wax badan ka fogeyn degmada Galdogob oo ahayd 3 nin oo lagu dilay deegaankaas waxay ahayd misalka ku haysay argoosi iyo daana qabiil waxayna ahayd xiisad qarka u saaran inay sababto dagaal ka dhaca beelaha walaalaha ah oo deganaansho iyo wada noolaansho u ka dhaxeeyo hogaamiyaasha dhaqanka iyo culimada oo markii horeba lahaa xiriir joogto ah oo lagu qaboojinayo xiisadda ayaa isla meel dhigay in casumaad Galdogob loogu sameeyo beeshii gacanta ugu dambeysay ay ku dhacday si loo badbaadiyo dhiigga inta nool anigu waxaan ka ahay odayaal dhaqameedka beesha Sacad galabtana meesha aan khudbada ka akhrinayna waa Galdogob mar lamaad waxaan salaamahayaa oo salaan labaad u soo celinayaa beesha leelkase oo Galdogob aan ugu nimid oo soo dhaweysay si sharaf iyo qiimo weyn leh meeshaas aan isugu nimid waxa ka dhacay si kalsooni iyo nabad waarta leh waxaan ku fududeynayaa warkayga beelahaas dadka ka dhashay dibadda iyo daaqil meelay joogaanba inaan si qaas u walaalownay hanaga gudoomeen ummadda kale oo muslimka ah mudug joogtana waxaan u soo jeedinaynaa finna wax qayraha lagu helayo lama arkay wadadaas beesha Sacad iyo beesha leelkasa ay bilowday waxaan codsanaynaa in wadadaas la wada raaco kulanka beeluhu ay Galdogob ku yeesheen wuxuu noqday mid miro dhalay oo wixii dhacay xalay dhalay laga noqday Sheekh Mursal oo ka mid ah culimada magaalada Gaalkacyo ayaa faahfaahin ka bixinaya qodobadii ka soo baxay shirka meeshan waxaan isku nimid dad badan oo culimo u diin iyo odayaal iyo nabadoomo iyo dhammaan dhalinyaro dhammaan waxaana la isku yimid islaax daatubeyn ayaa la isku yimid waxa la isku yimid khaas ahaan labada beelood ee leelkase iyo Sacad heshiiskood waxyaalo dhexdooda ahaa inay ka heshiiyaan alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay waa nagu guuleeyay maanta Sheekh Mahad Cabdullaahi Aadan oo ah sheekha magaalada ayaa isaguna ka waramaya waxyaabaha la isla gaaray waxaan halkaan ugu sheegaynaa dadka muslimiinta dhammaan khaasatan dadka ka soo jeeda beelaha deegaankan mudug ee Sacad iyo leelkase in shirkii soconayay labada maalmood maalintii Arbacada ahayd iyo maanta Khamiis ah ee la heshiiyay oo lagu heshiiyay wax Ilaahay raali ka yahay beeluhuna raali ka yihiin waxaan ugu baaqaynaa dadka Soomaaliyeed dhamaantood muslimiinta khaasatan deegaanka mudug in nabadaas la qaatay la wada qaato inay dadka muslimiinta ah Ilaahay ka baqaan in qofka muslimka ah dhiigiisu aakhiriya adduunba waa khatar ee la iska ilaaliyo Khaliif Cabdidalac oo isaguna ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka wafdiga ka tirsan oo Galdogob casumaadda loogu sameeyay ayaa isaguna waxa uu sheegay in la isla qaatay nabad iyo walaaltinimo culimadii baa sheegtay heshiiskii iyo wanaagii meesha tan ka dhacay degmada tan Galdogob shirkii u dhaxeeyay labada beelood ee Sacad iyo leelkase run ahaantii aad iyo aad baa arrintaas la iskugu fahmay la iskugu bogaadiyey wanaag badan ayaa ka dhacay heshiis wanaagsan baa halkaan lagu gaaray waxaan rajaynaynaa in aad iyo aad hore ugu soo socdo la sii taabageliyo Iman Maxamed Kani Puntland TV Galdogob